والكست أو نيتل مامو أما والكست أو لشيء أما والكست أو بروباغندا اللي في ديون ولله أنا بروباغندا والمنو دباس بين اسم شيكتنا والمنو دباس دولتكم kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idin soo gudbin doonaa ciidamadii taabacsanaa Cabdicasiis lafta gareen ee ku sugnaa duleedka Baydhabo oo helay gurmad xoogan hadaba gurmadkan xagoo uga yimid waxay yihiin ciidamadan soo gaaray ee duleedka Baydhabo ee halka lagu soo bandhigay waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa taliyihii hogaaminayay ciidamadan oo warbaahinta la hadlay iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kale ee soo dhaweysay ee markaasi taabacsan garabka lafta gareen markaasina sheegtay inay yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa duulaanka ay damacsan yihiin ciidamadan waqtiyadeena soo aadan oo ku wajahan magaalada Baydhabo iyo hanjabaadda ay markaasi jeediyeen dhinaca kale waxaan idin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh oo bilaabay beegsiga degmada Daynile maxaa halkaasi ka dhacay xogaha waxa ay tilmaamayaan in dad shacab oo halkaasi degnaa jirdil loo geystay isla markaana la dhibaateeyay oo guryahooda laga soo saaray ujeedo la yaab leh ayuu Xasan Sheekh Maxamuud u weeraray shacabka degmada Daynile waxaana arrintan si kulul uga hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka soo jeeday isaga degmada Daynile dhinaca kale waxaan idin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo isu dhiibay Turkiga haddaba Turkiga ma waxa uu bilaabi doonaa wada hadallo u dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale filla Soomaaliya faahfaahinta ayaad kaga bogan doontaan daawadayaal inta warbixinteena aynu ku guda jirno marka koowaad soo dhawow muuqaalkan la gare siina shirgare si dad badan xogteena ay u gaarto waa hagaag duleedka magaalada Baydhabo waxaa maanta lagu soo bandhigay ciidamadii ugu badnaa oo ku soo biiray ciidamada taabacsan lafta gareen warbixinadeena hore waxaan ku xusnay in lafta gareen uu qorsheenayo duulaan in uu ku qaado magaalada Baydhabo ciidamo aruursi ayuu ninkii ku jiraa mar uu siiha yani warbaahinta uu waramay yani waraysi uu bixiyay goor sii horeysana waxa uu ka hadlay xaaladda Koonfur Galbeed isagoona markaasi digniin u diray Xasan Sheekh Maxamuud haddaba ciidamadan cusub waxaa markaasi hogaaminayo taliye lagu magacaabo Taliye Shaah waana taliyihii ciidamada booliiska degmada Qansax Dheere isaga iyo ciidamo uu wato waxay ku biireen safka lafta gareen ciidamada isku urursanaya duleedka magaalada Baydhabo ay ku biireen waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay xubno ay ka mid yihiin wasiirkii amniga Koonfur Galbeed ee lafta gareen markaasi la shaqeynayay haddana markaasi waliba ku hadlaya ilaa haddeertan afka wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale afhayeenkii maamulka Koonfur Galbeed ugaas Xasan ayaa isna qayb ka ah iyo xubno kale oo fara badan halkaas waxaa lagu qabtay munaasabad kooban oo soo dhaweyna waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay soo bandhigistaasi ciidamada wasiirkii amniga Koonfur Galbeed iyo sidoo kale taliyihii la soo dhaweeyay waxayna hanjabaad cad u direen Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa oo ay markaasi ku tilmaameen salbalaad wasiirka amniga ee lafta gareen mar uu hadlay waxa uu yiri salbalaad iyo afbalaad waan isaga filan inaan iska qabano gacan bir ayaan ku qabanaynaa waana ka xoreynaa waliba waxa hadalkiisa sii raaciyay waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo markaasi nagala qayb qaadato xoreynta deegaanada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqdhaqaaqa ka socda duleedka Baydhabo waxa uu muujinayaa xiisad hor leh oo markan ka soo cusboonaatay Koonfur Galbeed ciidamadan waxay heleen maalmihii la soo dhaafay gurmad aad u xoogan waxayna ugu talagaleen in gabi ahaanba Baydhabo ay dib ugu soo celiyaan lafta gareen gacan ku haynteeda waxaan idin fasaxayaa muuqaalada naga soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo wasiirkii amniga ee Koonfur Galbeed ee lafta gareen iyo sidoo kale waxaan idin soo yani gudbinaynaa taliyihii la soo dhaweeyay qaabka loo soo dhaweeyay iyo qaabka ay u dhacday soo bandhigista ciidamada afhayeenka dowladda Koonfur Galbeed taliyaasha iyo taliyaha geeka Ninkooy iyo ciidanka Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faraan kadib hiraab eedan qurux badan oo eedan faylo taliyaha ciidanka booliiska gaarka degmada Qansax Dheere iyo ciidan shay in geeka halgankii ku socday deegaanada
baydhabo hareerasha inay kooyan iyo dhul dheer ha ku baxeen waana iyo dul qaadada waayeen xaaladda hadda dawladdiisa ka sugunta iyo sida salbilaartu deegaanadan hankaduuli walisan lana horta dhawaada walisan lana eedan mahsantiin waajibka isan hore in dhaar hateen oo hay in isan difacdan shacabka reer koonfur galbeed meel kasta iyo rogan qayb kumada iyagu kan wali faday in ana horeyna kama hadnagnay degmooyin fara badan horeynin kooyan oo kumada degmada weejid buur xakaba tagna degmadii saddexaad qasa dheero degmooyin kalena hadareeran ilaahay idin sheeg maalmaha taasoo kooy doona lan kasta oo digil marfle oo reer koonfur galbeed oo deegaanadan walaa hata la kasoo biyay salbilaar soo kasoo biyahayto ku dheediyana ilbaabkan furinyi hadhawaayan ilaahay idin sheeg walina lana difaac dadkii deegaankii diintin lan kasta waajiba ku saaran waana lan hata gaaran lena male ciidanka biliiska gaarka ah waajibaadka iyo waa bandhaareen iyo ka dhamadan iyo ka dhaawacmaan iyo waajibaadkaas qaadadaan walaayo hore in dhaaradeen markii wali ku filaanay ilaahay idin sheegsan ka dhaqsiya badan in magaaladii amnishay kala dambeyntii dawladnimadii nagaan rajeeyaan abaamirtaasna hore lansay langaare oo hadda geeka bartilmaameedadan ama langaare oo geeka la haysado sagaare lan haysado ma jaro dadka nidaamka hakaduuli oo dawladnimada hakaduuli markii la ku reebo dadka ka reer koonfur galbeedo dadka uu shaqeeyanayo dadka uu intaasoo sanahan adeeganiyo haddana wali diyaaran ana in adeeg deegaanadiina nabadiye iyo horumarkii ku socday iyo shaqadii ku socotay faylahayti oo dadka lanka adeegaya sidii laanka naga doona intii uu geesiyaashan oo kala haysano eedan ma santiin tali adeeg ciidanka marlamaad mar saddexaad wali kuma hadnagaana dadka kale horeen kooy dadka jidka ka jaro oo kooyo ilaa shabeellada hoose la hadalaayo hadareeron wali lanayoon hadhawaada deegaanka wal isleeyay dalka wal isleeyay dawladnimada wal isleeyay shakhsi gaar ah male ilaahay idin sheeg wali rajaynaa in codowga lagu tulqaado taliyagi kay oo ciidamada koonfur galbeed daraawishta horta ma ilaahay la kulmo horta taas mahadoow mahad kadib أنا إبراهيم علي عادن أو إبراهيم شاهي لينكساو أو كوكوي دقمة قصة ديرة تليا أو درايوس دقمة قصة ديرة أها هيك ما إن كوي أو إن كوي نيه إذا مدي تانو أو درايوس تي أو ميلا راي يجيك إن كويني وأنا ما يبديار أنا إن كويني إني دتكم أو ميلا راي هكدولين كفر قلبات وصل بلارته إني دول قادنا ما إلا راي عن كوين لانكاد مدقدي سورن ما يبواها وزيركي أو كوفر قلبيدو أو أمنية كان كي يقولنا أفوين كيو ما يبواها كان كي يقولن تلياقي كيو أو ما إلا تليم بادي أرتو ما يبوا محد بلار نغاي سحل أو هاين طوائن وطواشين سنفيل هاين طوائن يونا كما حد نغاي waa tahay waxaan rajeynayaa inaad soo daawateen wasiirkii amniga ee koonfur galbeed iyo sidoo kale taliyihii la soo dhaweeyay xaaladda baydhabo aad ayay u kacsan tahay markan xilli aadan madoobe saacadii la soo dhaafay uu dalbaday ciidamo aad u xooggan oo filla Soomaaliya halkaasi ay ku daabushay waa hagaag wixii ku soo kordho wararkeena xiga ayaad ku daawan doontaan xaaladda baydhabo waayahay markanna degmada Daynile ciidamo ka amar qaato xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay markaasi sameeyeen wax iyaga ay ku tilmaameen hawlgal balse aha beegsi beel gaar ah in la beegsado degmada Daynile waxaa duulaan ku qaaday ciidamo oo markaasi la sheegay in si toos ah uu soo amray xasan sheekh ciidamadan waxay sheegeen in ay baarayaan hub markaasi lagu qariyay qaybo ka mid ah degmada Daynile balse shacabku waxay ku sameeyeen xilli habeenbar ah in guryahooda laga soo saaro la jir dilo qaarkood la xirxiro tacaddi nooc kasta loo geysto arrinta waxaa si kulul uga hadlay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wuxuuna sheegay in dhibaatooyinkii loo geystay shacabka ay yihiin dhammaantoodba kuwo markaasi muujinayo heerka xasan sheekh maxamuud uu ka taagan yahay nidaamka dowladda wuxuuna diray hanjabaad culus isagoo sheegay in
shacabka dhibaatayntiisa aan laga dhexli doonin wanaag iyo sharaf, wuxuuna sheegay in aysan indhaha ka daawan doonin tallaabooyinka ay filla Soomaaliya u qaadayso dhinaca Daynile. haddaba shacabka Daynile oo horey u diiday in dhulkooda loo burburiyo haatan waxay wajahayaan culays aad u xooggan oo kaga imaanaya dhinaca Xasan Sheekh. waayahay gabagabadii muuqaalkan ku dhownahay markana dowladda Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud waa isu dhiibay, wuxuuna yidhi aniga iyo mucaaradka na heshiisiye. waxaan xogta ku helnaa in haatan xubnaha mucaaradka ah qaybtood ay ku sugan yihiin Turkiga, sidoo kale xubno filla Soomaaliya ka socdana ay halkaasi gaareen, wadahadal halkaasi oo ka bilaaban doono. Turkiga ma ku guuleysan doonaa in uu xalliyo dhinacyada khilaafka markaasi ka dhex taagan, maadaama xubnihii kale ee beesha caalamka ahaa ee xalana degnaa ay waxba ka tari waayeen. waxaa xusid mudan in haatan isugu tegay Turkiga, halkaasna wadahadal uu ka bilaaban doono.